ciidamada dowladda Jubbaland ee ku sugan meel u dhow deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa saaka aroornimadii hore waxa weerar ku soo qaaday maleeshiyaadkii eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud uu ku daabulay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada dowladda Jubbaland oo ku jira howlahoodii isdifaacida ayaa waxa ay jab xoogan gaarsiiyeen maleeshiyaadkii eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo daabulay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. dagaal qasaare xoogan dhaliyay ayaa waxa uu dhaxmaray labada ciidan ee Jubbaland iyo kuwa maleeshiyaadka eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo daabulay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. wararka aynu helayno ayaa waxa ay xaqiijinayaan in laba gaari lagu gubay kooxihii maleeshiyaadka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo daabulay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona wararku ay sheegayaan in qasaare kala duwan ay gaareen maleeshiyaadkii halkaasi uu diyaaradaha kugu soo daabulay ee uu ka dejiyay deegaanka Raaskambooni. ciidamada dowladda Jubbaland ayaa gabi ahaanba waxa ay la wareegeen deegaankii ay hore ugu sugnaayeen kooxaha maleeshiyaadka ee eedeysana Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo daabulay deegaanka Raaskambooni, iyadoona xilligan xaaladda deegaankaasi ay gabi ahaanba gacanta ku hayaan ciidamada halyeeyada ah ee dowladda Jubbaland oo iska difaacaya weerarka ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka uu Xasan Sheekh Maxamuud geeyay deegaanka Raaskambooni. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha rasmiga ah ee la gaarsiiyay maleeshiyaadka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo daabulay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. warar hoose oo aynu helayno ayaa waxa ay xaqiijinayaan in qasaaro nafeed oo aad u tiro badan la gaarsiiyay ciidamadii uu maleeshiyaadka ahaa ee uu ku soo daabulay Xasan Sheekh Maxamuud deegaanka Raaskambooni. ila waradyo hoose ayaa waxa ay xaqiijinayaan ilaa 12 ka mid ah askartii lagu daabulay deegaanka Raaskambooni ay dhinteen, iyadoona qasaare kala duwan oo dhaawacyahana ay jiraan. wixii warar oo ka soo kordha halkan kala soco.